halkan aan ku suganay hadda waxaa jooga ardada jaamacadda City Coast gaar ahaan kulliyadda maarinka ama cilmiga badda. Ardadu subaxdii waxay u soo kalaxaan si ay u bartaan cilmiga practicalka. qaybta theory-ga waxay ku qaataan jaamacadda balse qaybta practicalka waxa la keenaa badda ayagoo baranaya qaabka saxmadda loo wado iyo wax kasta oo ku saabsan saxmadda. sidoo kale ardadu waxa ay baranayaan dabaasha oo iyaduna muhiim ah qofka baranaya maarinkana uusan ka maarmi karin. ardada iyo diinkooda ayaan wareysan doonaa anagoo ogaan doona ardaydu ay faa'iideen iyo sida ay ku soo jarmaadeen subaxdoodu sida ay tahayna waan wareysan doonaa. ardayda kulliyadda marine science-ka departmentada kala duwan ama semesterada kala duwan halkan waxay u yimaadaan subax walba inay bartaan waxyaabo la xiriira practicalka iyo xiisadaha ay ku qaataan galaaska. hadda saako kale to halkan waxa jooga ardayda semesterka saddexaad. waxyaabaha la barayo waxa kamid ah waxyaabaha technician-ka la xiriira saximadaha lagu kalluumaysto haddii aan lahayd kaxayntooda iyo haddii aan lahayd matoorada saaran iyo qaabkii uu la falgeli lahaayeen. sidoo kaleeto qayb ka mid ah ardada semesteronka iyagana waxa la baraa dabaasha oo waxay tahay waxyaabaha muhiimka u ah ardayga baranaya cilmiga badda oo laga marmaan u tahay maadaama ay ku jiro badbaadadiisii iyo mataqaanayay la falgelitaankiisii badda. saa darteed subax walba halkan ardaydu way yimaadaan waxayna bartaan xirfadaha noocaas oo la xiriira cilmiga ay bartaan marinska. waxaa la tilmaamaa Soomaaliya guud ahaan Afrika inay tahay waddanka labaad ee ugu xeeb dheer resource ku jira oo aad u baaxad weyn darteed ka jaamacad ahaan anagu waxaan xoogga saarnaa inaanu bulshada ku jahayno ka faa'iideysiga kheyraadka badda. sidaa darteed baa ardayda muhiim ugu tahay in la helo kaadir Soomaaliyeed oo ku hubeysan ka faa'iideysiga kheyraadka badda. saxmaddan ayaa la saarayaa badda salkeeda ayaa la geynayaa. haddaba anagu waxaan rabnaa inaan raacno saakay ardada badda aan u raacno bal aan soo eegno qaabka ay wax u baranayaan iyo qaabka ay u diyaarsan yihiin. raxiim ugu horeyn magacaygu waa Cabdullaahi Dixaan oo Ciise ka tirsan kulliyadda Marine Science-ka jaamacadda City Coast. waxaan u mahadcelinaynaa jaamacadda maamulka kulliyadda iyo dhammaan cid kastoo ka qayb qaadatay inaan fursaddan helno. run ahaantii waa wax loo baahan yahay in la barto culumta badda iyo skills-ka la xiriira. haddeer ardada kulliyadda Marine Science-ka jaamacaddu wuxuu bilowday barashada dabaasha markii la yiraahdo way kala noocyo badan tahay. dabcan habkan hadda la barayo waa habka ugu advanced-san ama ugu sareeya qofka badmaaxa ah laga rabo. tababarkan wuxuu socon doonaa ilaa muddo 20 cisho ah. markuu dhamaado waxa ugu xigi doona ardayda skills la xiriira kalluumaysiga, fish processing-ka. sidoo kale waxa ku xigi doona inay bartaan qalab kasta oo la xiriira kalluumaysiga. haddaas waxay u sugnaatay Ilaahay Subhanahu wa Ta'ala markii laga yimaado maamulka jaamacadda iyo kulliyadda diinkeeda oo intaas waqti walba ku bixiya si loo soo saaro arday xirfadaysan oo u qalanta cilmiga barteen. waddankeena inta badan waxa dadku ay doortaan marka ay jaamacadda bilaabayaan in kulliyadaha waddankeena aad waxa weeye looga jecel yahay. maarintu waxay ka mid tahay kulliyadaha dhifka ku ah waddankeena lagu bartaa waliba jaamacadaha way yar yihiin bixiya. bal Cabdullaahi maxaa ku dooratay kulliyadda Marine Science? ugu horeyn anu waxaan ahay arday baajkiisa labaad gabagaba maraya. anoo sanadkii saddexaad maraya waxaa lasoo bandhigay fursaddan barashada culumta badda ama Marine Science-ka. run ahaantii waxay ahayd fursad baahi weyn loo qabo laakiin dadkii baran lahaa aysan ku baraarugsanayn. waxaa taas ka sii daran kulliyadda iyadoo ay tahay kulliyad baahi intaa loo qabo inay tahay kulliyad free ah. waa waxyaabaha la yaab kale. waan markii la sheegayay oo la yiri waxaa jirta kulliyad Marine Science la yiraahdo ay bixinayso jaamacadda City Coast waxa la yiri waa bilaash. waa rumaysan waay waxa yiri kulliyaddaas baahida inta loo qabo si loo dhihi karaa waa full scholarship. waxay marday kooban baa mise waa galaasko dhan wax li waa galaasko dhan yaa bixinaya waa ay rifan gareynaya. su'aalaha isweydiiyay bay ka mid ahayd. waxa la yiri rag ka tirsan maamulka jaamacadda isku xilqaamay in kulliyaddaas arday baranaysa la helo kharash kasta iyo wax walba ay u baahan yihiin 4 sano ay baajka diyaarinayaan ayagoo iska xisaaraan. marka waan doortay run ahaantii expectation-ka ka qabay ama filashadan ka qabay kulliyadda mid ka weyn baan aan helay. haddeer waxaan marayaa semesterka saddexaad insha Allah waxaan ku gulweynahay oo rajaynaya Ilaahay Subhanahu wa Ta'ala ka baryaa 4 sano 2 sano iyo haray oo dambe inaan si guul ah ku dhamaysto kadib markii waxa is xigi doona inaan bulshadeeda ugu adeego. aad iyo aad shaqan ku jira oo aan dhawahay walaahi wax weyn bay iiga dhigan tahay. garanaysaa inaan baranayno aniga tiimkaygiiba inaan baranayno dabaasha taasna wax naga saaciiday jaamacaddeena City Coast. aad baan uga mahadcelinayaa guddoonka jaamacadda iyo dhammaan macallimiinteenaba.
waaya safa inta badan dumarka Soomaaliyeed ma bartaan kuliyadaha natural resource-ga ama haddii ahaan lahayd beeraley haddii ahaan lahayd macdanta haddii ahaan lahayd maarinta oo adigu ka mid tahay ardada bartay bal maxaad ku dooratay adigoo gabara kuliyadda maarin sayniska walahi in resourceska in khayraadka dalka la barto wax aad iyo aad u qiimo badan kumana baraarugsana dee haweenku inay baran karaan waxaan leeyahay anigu baahi ka weyn ma jirto inaan barto maarin ama resourceska kale oo magaranaysa ay ka mid tahay agriga oo kaleeto marka aad baa ugu faraxsanahay taasina waxay hidriyadayda waan ii rumowday alxamdulilah mustaqbal weyn baa ka leeyahay inaan kaftan noqdaa rabaa inaan navigation noqdaa rabaa inaan maxaa la research sameeyaa rabaa waxyaalo badan baa rabaa inaan sameeyo oo maarinkan ku saabsan way hay anagoo saaran saxiibadii la socon baa waxaan aragnay saximada ay wataan ardada jaamacadda Sikood waxay cajiibka ku arkaysaa wax ka mid ah ardada saxiibadan dhan iyada maamulkeeda wata iyada motorkooda wata ayada iyaga baa saaran iyaga dhiinkooda baa saaran waxaan u tagi doonaa saxiibadan ardayga wadaha ayaan wareysan doonaa way Cabdulla soo dhawow waxaad ku guda jirtaa waditaanka saxiibada bal naga waran qaabka ugu skillskan wuxuu ka mid yahay kuwaan aan baranayno ay jaamacadda Sikood ay ardada maarin sayniska loo wado hadda waxaan wadaa saxiimadii naaqoodan hadda rahay waxaan rabaa inaan socono aan soo booqano maraakiibtaas halkaas shidaal ku kala wareejinaysa Cabdulla markay koowaad miyaa saxid wadid marar kala jiray waa tababarka intuu ii socday baa igu horeysaan inaan wado horay ma aanan wadin tababarku meeqa ku socday ilaa hadda 5 bilood wadnaa toorka saxiibada kale wuxuu leeyahay 2 geer oo kale xawaaraha way ku kala sareeyaan hadda kaana wadno kale 2 geer buu leeyahay waxa way hadii aad loo kaxayo waxaan u maleynayaa gawaarida bajaajta iyo dhiklooyinka inay ka dheereen karto